degmada Waraabe ee ka tirsan gobolka Togdheer waxaa si weyn looga xusay xuska 35 guuradii ka soo wareegtay dib u soo noqoshada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. kumanaan ka mid ah shacabka degmada Waraabe ay wehelinayaan maamulka iyo aqoonyahanka cuqaash iyo waxgaradka kala duwan ee degmadaasi oo ku labisan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dowladus balaaran ka sameeyay goobta ay ugu tala galeen maamulku in lagu dabaaldego xuska 18 May oo ah maalin qaran ay shacabka Soomaaliland gaar u leeyihiin. Waraabe oo ka mid ah degmooyinka waaweyn oo hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa sanad kasta sidan oo kale looga xusaa 18 May. mas'uuliyiinta cuqaasha maamulka haweenka aqoonyahanka iyo dadweynaha kala duwan ee degmada Waraabe ayaa goob fakara kala hadlay shacabkii kala duwan ee u dabaaldegay xuska 18 May iyagoona uga warramay muhiimadda maalintani qaran leedahay. hambalyo sanad guuradii 35aad 18 May oo maalintii go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland 35 sano ka hor ay la soo noqonay oo gobolka Togdheer laga dhawaaqay. degmada Waraabe waa u hambalyeynaa shacbigeeda cuqaasheeda haweenkeeda dhalinyaradeeda waxgaradkeeda iyo degmooyinka kale ee degmada Waraabe ku xiran sida degmada Bilcilweyso Sanyare Xuseen Xamar Balle Cali Balle Cumar Jibriil Balle dhammaan dadkii deegaanada ka yimid ilaa Labiguun aad iyo aad baan iyagana u hambalyeynaa oo soo dhaweynaa waana salaameynaa. maanta waxaan joognaa maalin qiimo badan baan joognaa maalin aynu haysano ictiraaf baan joognaa oo dawladaha caalamka ka mid nahay inagoo aan ictiraaf haysan baynu guntiga dhiisha isaga dhignay oo aynu qarannimadeena ka shaqeynaynay maantana way ka sii weyn tahay waa sanad guuradii 35aad maanta oo kale 1991 inaga qiimo weyn bay horta runtii inoogu fadhida waayo raggii markaa maalinta taliyay ee yiri waaryaynaan cid waxba ku darsanina aynu dawladnimadeena 60kii la soo noqono talo wanaagsan bay maalinta inoo taliyeen. waxaynu maanta ku jiri lahayn xasano iga soo bax iyo farmaajo iga soo bax baynu ku jiri lahayn oo ilaahay naga badbaadiyo. waxaynu u baahanahay inaynu hore u sii wadno dawladnimadeeni maalinta ka dambaysa way soo kordhaysaa. dawladii iyo madaxweynihii maadaama waxbuu ku darayay ilaa maanta ninbayn buu keenayay. maanta waxay maraysaa inay caalamkii hore ugu socoto oo idaacaddii la furaaba ay Soomaaliland ka sheekaynayso maanta in wadamo kale jidka ku soo jiraan oo ictiraafkii Soomaaliland ay dhawaan ku dhawaaqayaan. waxa mudan ragga soo qabangaabiyay xafladan qiimahan leh ee ku siman ilaa SNM Soomaaliland ha noolaato cadowga ha jabo nabadgelyadu waa muhiim dadkan wax la qabsanay waa muhiim inaynu dalka wax la qabsanay waa muhiim inaynu ma garanaysaa bulshada ka qayb noqono oo wixii kasta loo baahan yahay inuu wax ka qabsano waa muhiim. dadka reer Waraabe horta waxaan ku baraarujinayaa aad iyo aad inaad degmadiina wixii ay idinku midho kala soo baxdaan ee muuqda ayuunbaa waxtar idiin noqonaya. wixii aad goosataan ee aad dawladda ka goosataan ayuunbaa idinka go'an. lafahoodii faqash waa ogtiin oo degmada tuuladan Sanyare halka laanta caana macayska la yiraahdo nin walba uu garanayo lafihii baa yaala faqashta haddadaasay taalaa waa wada garanaysaan. wixii halkaa dhigay waxay ahaayeen raggii maanta munaasabaddan aynu xusayno raggii inoo noqday hurmuudka ee inaga kiciyay gabaaraydiina cunaysay. inta mudaniyo mayna soo raac maydu waata waa 18 May maanta xusayno. inaga maanta waxa ka mid ah jiritaankeenna iyo waxyaabaha aynu markaa waxa weeye dugsanayno iyo waxyaabaha aynu markaa waxa weeye leenahay sida maalintan oo kale oo halku dhiga sanadkan uu yahay aqoonsi iyo adkaysi. markii aynu adkaysanay ee duruufo badan aynu adkaysanay ee ka go'anay wixii Soomaaliland la isku oran jiray oo dhibaato farbadan inagu soo gaadhay ayaynu waxa weeye maanta aynu aqoonsi helnay. maanta waa maalin qaaliya oo ku qaaliya qarannimada reer Soomaaliland dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaan hambalyo u dirayaa. waxaan leeyahay degmadu waa degmo ballaaran. mar labaad waxaan hawada u marinayaa
salaan ma garanaysaa sharaf leh oo degmada Waraabeeye aan ka gudbinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan halkan hambaliyo iyo salaan sharaf leh aan uga diraya aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee aynu u soo qaabilay buuxinay mahfalka aynu ku dabaaldegayno dhaganuglaanta ismaqalka isu imaatinka aad iyo aad baan bulshada reer Waraabeeye iyo kuwa deegaankeenna kale inooga yimiba iyo kuwa inagu soo guurayba dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad baa u mahadsantihiin maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waa 35 guuradii 18 May ee aynu ka soo wareegtay xornimadii aynu dib uga soo noqonay sida ay u soo ajiibteen 18 May waa ayaan tilmaaman waa ayaan aad iyo aad u mudan ilaahay waqtiga nabadqab lagu gaarsiiyo aad iyo aad waan idin hambalyeynaya dhammaantiin shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaa xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay